إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. الحمد لله حمدا لا غاية له ولا نهاية. إلهي بامهاتسن سبحانه وتعالى حمدي قايو إيا بدايو إيا النهاية منا عن لهين نوكل ميي بقعة من خير بقاع الأرض. إلهي أرلوين كيسا بقاعدة كيالا أما قيبها بواسسك كيالا بقعوين كأو خير كبضنه وإلهي قروقيسي أنه ضد مسلمين oo gurigaas ilaahay u soo doontay martiqaad u soo doontay. alxamdulilaah, ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaala lagu kulmiyey majmacan khayrka badane. waa u dhaha rasuulkeenu: khayru buqaaci alardi masaajiduhaa wa sharuhaa aswaaquhaa fabihaa baadla shaydaanu wa farakha. buqaacda waxaa ugu khayr badan aradatan ku taala, masaajidda ayaa ugu khayr badan u dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam. waxaana ugu shar badan aswaaqda ama suuqyaalka ayaa ugu shar badan. fa bihaa baadla shaydaanu wa farakha. aswaaqda waxaa weeye shaydaanka ayaa ku ukumeeya, saldhig ayuu ka dhigtaa ayaa laga wadaa, markaasuu kubuul kacsadaa. waa meel markaasi waxaa weeye wax xun la isugu keeni karo, dhaar beena iyo waxyaabo badanoo mandar shaniica iyo dagaal iyo markaasi wax badan ay imaan karaan. laakiin beydkan ilaahay oo ilaahay hadda uu namakaniyey inaanu ku kulanno annagoo alla wax iska xasuusinayna, waa buqaacda ilaahay meelaha ugu khayrka badanna waxayna ku khayr badnaatay ummadda meesha imaanaysa. waxay noqonaysaa ummad mu'miniina oo iimaan ku sifoobay, qalbigooduna khaalis oo u yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inay caabudaan. alla kaliyana maaragtay u socda oo cid kale waxaan ka doonaynin, adduunyo aan doonayn, waxba aana doonaynin. meeshaan wax laga soo doonanayo oo markaasi wax adduunyaahu ma jiraan. waxay culummadu yidhaahdaan oo qaacido kuliya ah: likulli maqaamin maqaal. maqaam kasta oo la joogo wuxuu iska leeyahay maqaalo oraah amase kelimo markaasi munaasab u ah oo laga yidhaahdo. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam sida aada og tihiinba acmaasha waxa uu fadili jiray xaaladda markaas jirta midda taagan oo muhiimka ah ayuu fadili jiray. oo acmaasha midda uga afdalka ah, mar nabigu calayhi salaatu wasalaam salaada ayuu dhahayay: asalaatu calaa waqtihaa bacda shahaadateyn. sida maaragtay aa jirta salaadu shahaadateynka markii laga soo tago arkaanul islaam ayada ayaa ugu fadli badan. mararka qaarkoodna waxaa la arkaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam axaadiista saxiixeynka iyo kutubta kale
asoo nabigu calayhi salaatu wasalaam hormarinaya jihaadka hormarinaya waxa la isugu keenayna waxay tahay marxaladda markaas taagneeday ayaa xasaasi ahaaday markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa uu ku boorinayay waxaan haddaba marka aan rabnaa mowduuc hadda gaar ah dad culummo ayaa masjidka joogo waaweyn iyo hoggaan badan ayaa jooga wax hadda culummada markay meel tagto anugu hadda culummada kaba mid ihiye ruux iska caami yahaan ahaye waxaa la yidhaahdaa markaasi mowduuc fulaan ayaan kaa rabnaa ha la yidhaah laakiin hadda aniga layma dhihin marka anaga hadda waxaan isleeyahay amaad fiirisaa qaacidadaas likulli maqaamin maqaal maqaam kastoo la joogo wuxuu iska leeyahay kelimo oo markaasi u gaara oo loo fiiriyo oo munaasab loogaga dhigo waxay ila tahay markaa dadka Soomaaliyeed oo caalamkan ku nool gaar ahaan dalkan South Africa la yiraahdo magaalada Cape Town dadka ku nool iyo dadyowga kaleentood oo masaa'ibta iyo mashaakilka iyo cadaabka markaasi uga soo tagay dalkoodii u adkaysa waayay inay u baahan tahay in markaasi waxa weeye waxan ugu dhacay iyo markaasi cudurka nahaaya in markaasi waxa weeye aanu isfahamsiino sababtoo ah qofka mariilka ah haddaan la ogeyn cudurka haaya aan la ogeyn ama isagu uusan ogeyn dhibaato weyn bay noqonaysaa oo si loo daweeyo la garan maayo maxaa yeelay qolada dibbigaba waxay yidhaahdaan marka hore waxa weeye awalan alfaxsu marka hore qofka waxa weeye la baaro weeye suma alfahmu kabacdina cudurkii la fahmo suma dawaa kabacdina la daaweeyo saasay noqonaysaa saas ayaa waxa weeye mariilki ayuu ku socon ku hagaagi karaa marka ugu horeysa in waxa weeye cudurkiisa in la baaro baaritaankaasna wax lagu ogaado cudurka waxa uu yahay la ogaado dawadii muqaabalka u aheedna la siiyo markaas ayaa waxaa loo rajay karaa inuu caafimaado laakiin haddii wixii ay qalad noqdaan waxaa imaan karta in madalka uu ku sii ziyaado taasna markaasi halaag ay keento wax annaga hadda maanta noo munaasaba jawaanibta waxa weeye abwaabta faraha badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmigiisa wax la soo koobi kara maahan axaadiistaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo tirada badan oo la baabayhayo baab walba waxbaa looga hadlaa halkaas baab oo markaasi laga hadlaayo ayaana waxa weeye waqti fara badan qaada kara hadda wax yar oo alxamdulilaahi aanu isku baraarujino ayaan maaragtay doonaynaa waana naloo kaga aqoon badan yahay qofkii markaasi wax ka fahma ama se dhegaystaahu wixii markaasi horay uu yaqiinay ayuu markaasi u siyaasanayaa uu ku baraarugayaa oo waxay u noqonaysaa lownu biha la tanabaha qofkii markaasi haddee markaasi aqoonti ay u dhiman tahana waa ka faa'iidaysanayaa sina loogu qasaarama kii caalimka ahayne waa ka faa'iidaysanayaa kii aan caalimka ahayna waa ka faa'iidaysanayaa oo jamacaanu jamac khayr badan ayuu noqonayaa waxa aan la hadlaynana waxa weeye waa dad muslimiin ah oo loo yaqaano Soomaaliya loo yaqaano wixii markaasi annaga munaasab noo ah xaaladahan oo kale ayaana wax iska xusuusinaynaa waxay ogtihiin in marka annaga dhibaato fara badan ay haysato ayadooba hadda dhibaato mar ay adduunyo ka maqan tahana aysan jirin adduunyada tan markii culimada laga hadlay iyadoo nusuusta laga qaadanayo maxaa lagu macnay karaa ayaa la yiri adduunyada maray raaxo leedahay raaxo la dhihi karo waxaasay raaxo ka tahay iyo maray dhibaato leedahay la dhihi karo waxaasaa dhibaato ah ma la dhihi karaa markii baxsi badan la sameeyay waxay adduunyo ku soo gabagabowday adduunyaa daaru imtixaanin wabtilaa'in
وحالة قادنا نصوص القرآن يا أحاديث رسولك عليه الصلاة والسلام الدنيا وحوي دار لا يسكو امتحانه أو وحوي لا يسكو امتحانه دار لا يسكو جربه ولا يسكو جربه لبض مركب محي نقض المركز امتحان ابتلأ يا الدنيا لبض سيك بحويس وأنا كنا ما هيسا مركب لبضاس لبا إنسان كراحة وأهمأهن maxaa ilaa imtixaan waad garanaysaan qofkan imtixaan uu ku jira marka leeyahay waxa laga qaatay Allahu yabsudu rizqa liman yashaa wa yaqdiru macnaheedu saas kamita Ilaahay wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala Allah waa midka rizqiga fidiya oo maaratay yabsudu rizqa liman yashaa min ibadihi wa yaqdiru lahu adoomankiisa qofka uu doono Ilaahay rizqiga waa u fidinaya yabsudu rizqa liman yashaa min ibadihi waxaa loogu fidinayaa imtixaanan waaye hal yashkuru am laa bal ilaahay xoolaha uu siiyey inuu ku shukriyo iyo inuusan ku shukrin haddii uu ku shukriyo ilaahay baa u siyaadinaya hadduu ku shukri waayene ilaah baa ku cadaabaya oo ilaahay wuxuu dhahay la in shakartum la aziidannakum wala in kafartum inna cadaabii la shadiid xoolihii marka qofkii la siiyey dhibaataa haysa laftirkiisa sababtoo imtixaan waad garanaysaan markii maanta lagu yiraahdo iskuulka ama jaamacadii ama duruusta kale imtixaan baa loo fariisanaya imtixaanki marka waxa weeye naxdin iyo dhibaato ayuu iska leeyahay ilaa aad natiijadii aad ka ogaato adduunyada aanu dhex joognana ayadoo imtixaanka nagu ah dhibaatada aynu ku dhex jirno natiijada meesha laga ogaanayo qiyaamada waaye inti ka sokaa marka waa la dhiban yahay noqonaysa ibtilahana wa yaqdiruna marka ilaahay waa ku cariiriya ibtilaan waaye qofkaas waa la jaribayaa inuu markaas hay yasbiru biqada illaahi wa qadarihi am yalduru inuu ilaahay qadarkiisa qadihiisa raali oo ku noqdo iyo inuu markaas xanaago maxaa yeela sharta iyo khayrku min qadari illaahi weeye أركان الإيمان مركا الله ترينايو سيد رسول كان عليه الصلاة والسلام أتري أركان الإسلام با أركان الإيمان كوحا أوضا بيسا وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وإلهي قدر كيسا إناد رميسا خير كيسا إيا شرتيس وهدي ابتلأوا يمادنه وأحمد هذا مركاسي أنا أبضان هايه وحال الربا مركاسي إن الرمايو ورالي لغنق ذا لدونيا qofkiisa qofku naftiisa inuu rilla ka raadiyo oo qadarka yaq Allah ilaahay raali uu ku noqdo waa markuu iimaan leeyahay iimaankii waxa weeye sidaas ayaa kamida arkaantiisa kamida marka hadii wax la siiyane imtixaan ayaa lagu jiraa hadii la iska daayane oo masaa'ib ay dhacdo maalkii la iska baabi'iyo waxa weeye nafti loo yimaado xoolihii loo yimaado awlaadi loo yimaado wax kasta ma abaara ay dhacaan sida hadda maanta nahaysoo kaleentood waxay noqonaysaa markaas ibtilay noqonaysaa ayadana waxaana la ka doonayaa inaanu ku sabarno ayaana la ka doonayaa laakiin waxaa la rabaa inaan markaas aan ogaano waxaanu xageynooge maxaa noogu sababa maxaa sabab kala ah oo markaas shaygan ina loogaga tago wax kaloo wanaaga saaligu heli karaa ila ilaahay wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ilaahay ma bedelayo ummadu waxay ku sugan tahay waxa soo markaas amba khayr amba shar waay hadii nabad la haysto waxa weeye waa khayrki nabad markii la haysto waa khayr weeye maal hadii la haysto khayrki weeye caafimaad hadii la haysto khayrki weeye lama bedelayo oo waxa weeye dadkii ayagoo sidaasa ay wax intaas ay haystaan markay dariiqa ilaahay ay ku socdaan oo ay ku amal falayaan kitaabka ilaahay sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam intaasna ilaahay uu siiyay laga qaadi maayo waxyaabo yar yaro maaratay imtixaana waa dhacayaan oo darajada lagu rafcinaya ayadana haddii ay masalan ba ku sugan yihiin macaasi ee macaasida ay sameeyeen loo cadaabay
cadaabkii ay ku dhex jiraan inay macsidii ka towba keenaan ayaa loogaga bedelayaa hadday macsidii ay ku jireen oo sabab ugu noqotay inay ibtilada tanu ay ku dhacdo sida hadda annagana haysa waxa weeye markaasi waxaa looga qaadayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala markay iigu isbedelaan oo wixii waxaan keenay oo sabab ka dhigay inay ka tanaasulaan oo rabbi u soo noqdaan ilaahay wuxuuna leeyahay wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfu can kasiir oo haddii masalanba dhibaata ayna haysato sida maaragtay tafaruqa ka nagu dhacay ee maaragtay khilaafka iyo mashaakilka maxaa yeele haddii dadku hadday iskhilaafaan waxay ku midoobi karaan waa inay ilaahay subxaanahu wa tacaala manhajka allah iyo rasuulkiisa inay raacaan taas ayaa lagu midoobi karaa oo ilaahayna noo sheegay rasuulkiisu noo sheegay taas haddii la sameeyo ayaa dadku waxa weeye wanaag ay ku socon karayaan laakiin haddii ay ka leexdaan dhibaato ayaa ku dhacaysa dhibaatadina waa musiibadii ayagaana kasbaday maxaa yeele waxay ku kasbadeen waddadaasa qaadina ayuuna dhahay shartaa ilaahi subxaanahu wa tacaala ee waddada khayrka qaada wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasaba aydiihim ilaahi wixii musiibaha idinku dhacay waxa idinka ayaa kasbateen musiibadana ha u qaadana mid aad iyo aad u waaweyn kaliya maahan wax yar xataa qofka hadday musiibaha ku dhacdo kabtaas oo kabta ilaashkeeda oo kaa go-a iyo qodax yaroo ku mudda wax yaroo adiga markaasi xoogaa xanuunku geliya adduunyada musiibaday ka mid yihiin marka dadkaas musiibadu ku dhacayso in dembi ay galeen loo cadaabayo iyo in markaasi darajo loogu rafcinaayo labadaasay mid tahay laakiin midda hadda annagana haysa dembi aanu galnay waaye ilaahay subxaanahu wa tacaala intuu naga cafinaayane waa ay ka badan tahay oo waxa weeye wayacfu can kasiirin kasradaas wax qaayaa ma laha inta ilaahay naga cafiyey wax la sheegi kara maaha in aqaliye ah ilaan kasra lidkeedu waxa weeye aqaliye waaye wax yar ayaa markaasaa waxa weeye ayaa noola ku jaasiyey wixiyaa marka waxa weeye intaan hadda aanu arkayno soomaali haddaanahay dhibaatadana haysata ayaan markaasaan qaadi la'nahay ilaahayna intii badneed isagaaba naga cafiyey waxaa loo baahan yahay marka intaas inaanu maaragtay aanu ka soo noqonno oo amarka ilaahay iyo rasuulkiisa aan qaadanno oo wixii dhacay oo waxaan sababay inaanu bedelno ayaa naloo kaga qaadaya haddaan kusii soconno taariikhda caalamka soo jirtay diimihii hore iyo diintaynan diintu waxa weeye usuusha way iska waafaqsan tahay ee waxa weeye furuucday ku kala duwan tahay xataa annaga tayna ayaa xataa furuucda fahamka markaasi kitaabka iyo sunnada markii la fiiriyo ayaa furuucda lagu sii kala duwan yahay ayadoon taas wax dhibaato aan lahayn maxaa yeelaa waxaa ilaahay subxaana fadliga ilaahay waasac weeye islaamkuna wax weyn oo raxmada weeye oo ballaaran markaasaa waxa weeye waxay keentay in markaasi faham fara badan in nusuusti laga yeesho oo qof walba si wax u fahmo isla markaasnaan la ysku haysanin oo intii markaasi rasuulku uu joogay asagaaba marjic ahay wixii su-aalaasaa loola noqonayay laakiin bacda rasuulilaahi xataa inta nabigu joogayaa xoogaa masaa'ilaha asxaabta isku qabatay bacda rasuulilaahina waa la isku qabtay wixii waa soo socdeen annaga waxaanba joognaaba nambarkii adduunyada ugu dambeeyeen taagana wax lagu yaabaya mahna arrintaas laakiin waxa usuusha in la isku khilaafo ayaan la ogolayn taas markaanu ka soo tagno ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna dhahay alleh wa adiicu llaha wa rasuulahu walaa tanaasacuu fatafsharuu watadhaba riixukum wasbiruu in allaha maca saabiriin waxaan macnaha aan soo qaadanaynaa suuratu lanfaal aayaddaas ku jirta in haddii ilaahay amar inuuna siinaayo ilaahay waxna amraayo amarkaas haddaan fuli weynana amarkaas haddaan fulin inaan khasaarinoo hoogayno oo musiiba nagu dhacayso oo maanta waxa nahaaya ay tahay amarkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ka yimiday oo rasuulku waasidada uu ka ahay inaan fuli weynay waxaa noo caddaynaya ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala wa adiicu llaha wa rasuulah ilaahay iyo rasuulkiisa adeeca daacada ilaahay iyo rasuulka la adeecaayo wixii awaamir ah in la qaato
وشريعة أنه نفريسه وحي نجر يبتنا لجا حرو ضاعدوا سداس واي مركي الله صوق قابيو وأطيعوا الله ورسوله هذا إلهي رسول كيس أضيع أو راعى هدنا إلهي وحوله سبحانه وتعالى ولا تنازعوا أيها الإلهي هدودنا وله إلهي معناه وحافظ ميسا إلهي رسول كيس هدي الله أضيعه سرب الله أضيعه إن للدوديننا ماشى كذا لا يسمر إلهي رسول كيس وأضيعنا هدي ضاعدا أي صح نقطة ضاد إيمان ميسو هي خلاف معناه وحوي ضاد لالينيسا ذنوب كينيسا إلا يسدل كينيسا إلا يسحنت كينيسا إلا يسعاية كينيسا إن مالك الله يسكدع كينيسا إرلق إلا جراحية كينيسا تاس أيها لولجي ذا وحوي مركزي تنازع أما ضاد ساس كينيسا واي لكن وح مركزي فهمه أو مثلا بهذا مارتيا سيدا أنا صحابة سان نك صحابي أصحاب ساسي وحين أفهمين أيضا ساس على سوق قف بسان ومعني مذهب تانو سيدا أنا قبطا مارتيا أو فرع عاد وسان وقضائية وحاس تاس ضد لما يراد تاس مدة لك حد لا يماهن ولا تنازعوا أيها الإلهي هدودنا الإلهي هذه هذا النذكر يا بمركه هدودنا إلهي ونرى واد ضادنا مركه وحكاس هذه الله ضادنا ضادنا مركه سأي نقطة ضاد عن مركه وحلا يسقون السيحين أيته نصاح والله اسكروا قفك هدو إلهي الله كبا فاتقوا الله وأصلحوا ذات سورة أوائل كذا إلهي وحوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إلهي كعب صدق waxa idin dhaxeeyana ka hagaajiyo oo ka shaqeeya sababtoo ah dooddaas laftirkeeda dood wax lagu hagaajiyo waa la rabaa oo islaax loogaga shaqeynayo waxa safulinaya sida naska quraanka ilaahay noogu sheegayo qofka rabbi ka baqa fulinaya oo cabsi ilaahay u baahan tahay iyaduna maxay ilaahay fattaqullaha wa aslihu dhaata baynakum wa ilaahi waxa meesha marka ka cadaanaysa hadana waa sii wadayna aayadaas kale إلهي كبقى أيوه الله سبحانه وتعالى الله لقى بقى مركي لصوق قابي وحوي أوامرت إلهي فرطوم وحو الله إذا كرهيب أنا كهرع قفك مركي وحا الله وفرع يفرطوم وحا الله كرهيب أنا وكهره مركز أيوه قف وانا كشغي كرون قنايا لكن هدوسا ربي كبقينين وح الله درسايا بلا مفسد ونقنايا مفسد أيوه نقنايا وح الله درسدان نقمايا وأصلحوا ذات بينكم ضدك إلهي أوليها يا واي وضدك مرك ورا أمرك إلهي وأمري أمرك إلهي قاطي فاتقوا الله أيها إلهي سبحانه وتعالى وأصلحوا ذات بينكم كبعد له وأطيعوا الله ورسوله إلهي رسولك يساعد إن كنتم مؤمنين أداتي ضد مؤمنين تهال السفيه مرك هذا بالفيري إلهي رسولك يساعد عدودي أيا حتى دب له صير دغيو وحي كدن بيسا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إصلاح ذات البين إنه شيء مهم وياي واحد نحضينا مشاكل اسقبض إنا نحلنا إنا مهم تاي وها إلهي كذا وكينا وأطيعوا الله ورسوله هذان إصلاح ذات البين أو سنجر أو مشاكل كالنهاية قال عن صومالي هذان هاي مشاكل كالنهاية هذان كشقين أو أنا نفهمين ما إيمانا يسمر كاسي وأطيعوا الله ورسوله إما مكرته إلهي رسولك يساعد ما إما هيس مرك هذا أساس لليه هاي ما عن عامة ترى لقوضة ضد كان ضد مؤمنين أي ضد مؤمنين تا قفوا البوانا وكشغي وانا ربيا لكن واحد عامة مسا ما يكريو لكن نفتي سأي جمع إنه واقصة مينا يا هذا واحد ما رأوها ياني هذا واحد ويا أيقو بريا يكين فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله لكن إلهي معه شرط وقال إن كنتم مؤمنون له وهذا أنا كاغا عدانيسا أوامرتاس إيا وناقاس إنيسان كإيماني عدان مؤمن أنهين أون إيمان كيدو كرون شيئي يا مؤمن مرك إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ضدك وحاسا إيكا أنصحان ياو إله سيت الماما شان سفالو شيئي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. ساسور إلهي سبحانه وتعالى معناها وحواي يا الله كبقى يا مركي ليلاد إصلاح ذات البين يا كشقينايا يا إلهي رسول كيسا أضيعايا ومؤمنين الصفات كان إسكالواي مؤمنين ضدك مؤمنين أو صفوين كان شنطة إسكاله أيا أرنتاسو كإيمانيسا هدي هذا قف مفسد وحلو ديبو حلقيا وحلو ديبو صفات كان أوصن إسكاله هينين فسهاد أيا صيب بدنيا واسيدا هذا ولقينا هيستا دا حتى صومالينا أما عالم الإسلام با أنا هذا إسكاد لينه أنا تنفتين أجيدنا الله ربا ما هذا تنوارين تنقولين وقماهن لكن ما ده يسد أدوه ونار تبريل الجلاء أنت أصوات ضده إلهي لأملأن جهنم من الجنة ضد كاس دا جني إنساس كمدنا وضع محايق باعي هدات تلاهيد وحصورة الجلاء يما سببتها حنونك أي كوها يسعد كلا قايب سما يسعد نقولي ذا كوي عذابي كاسنا ورب اسمه يسينبا بركة إن لديه مايو وحاس هدي أمارة يا أنا بقى أنا مارة يا أنا فلين المحايق قري ماشي متعال ومنين توحى الإلهي إنما هذا تحسها إنما المؤمنون الذين كلام مؤمنين معهم مؤمنين إيمان كودو كامل هواي وحال تري مركا الإيمان الكامل محوية مركي لإله آياتها أنا رسوقاتها إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله تتك مؤمنين توحى الإلهي كو إلهي الله حصه معناها وحال لغور رمي إلهي سبحانه وتعالى جلال كيسا لغور رمي وحا إلهي ضدك كعب سيقلنا نارت إيو عذابك إيو شدائد قيامة أيال وعب سيقلي وجلت قلوبهم قلبي وضع يا بقايا ضد وحضر كيسا نارا لغا شيكينا يا سرات كبا لغا مشي سكرات الموت كي عذاب القبر وحا صار لغا شيكينا يا وحبا إيسان ساميني maxay u saamay laadahay dadkay saameeyeen ma aha dadka arinta saameynayso waa dadka muuminiinta qofka muuminka oo rasuulku tilmaamay kaleey salaam qofka muuminka dambi yar markuu ka dhaco waxay la mid yahay buur weyn oo korka uga soo dhacaysa munaafiqna markuu dambi saarayo kaduwaabin yadiiru ala afi waxa way tixsiim meeshan uga haadhaadaya saas oo kale u leeyahay wax dambigu leeyahay malaha شيء تسعين يالهن كمر مرة يوكلا وأنا أركت واسكم مقتاب مؤمن كنا وحوي دمبيو بور وين أو كصور عيسو أنت صو ماذا الله يكرته أو كريس كصور عيسو ساسو أركا ما هي إلهي عبسيس قلبي سكجرت إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته مركي إلهي آيات كسل وأخريانه زادتهم إيمان إلى إيمان أو زيادة آياتها إلهي مركي إنه لكو أخرية يا حديث رسولك عليه الصلاة والسلام وين إيمان وزيادة وهذا أمدانه أي إماهي شغلوا صوت ضيعي صدد مؤمنين وحي ربان إن إلهي آيات كيسة لقيستان مركز إيمان كودي أو زيادة سيدا هذا مثلا هذا مركز قفك هدو بضيع عمل كوهيستو مر والبوح وكشقيا إن مركز بضيع زيادة تجارة أصبح بدن ربح أو هلا أو ربا وأمورها الدنيا إيمانك جنة اللي جلها يصدق زيادة أو ربا معايا لو إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان الإله وعلى ربهم يتوكلون ربي قاضينا ثلاثة ربي قاضي كوكل سوين قفك مؤمن كوحال ربا إلى الله إنه كوكل صون هذا ربي إنه ثلاثة وحك الصور دعاية إلهي بان كافٍ كره ادكلا أليس الله بكاف عبده ومن يتوكل على الله فهو حسبه قفك إلهي ترسارته إلهي بقى كفلا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وح كفلا أون كالما أباهنين أون قرب جيد أباهنين رب العزة واي عدي كلام مخلوق وحبا ما تركرته وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وأقوى صلاة أوغاي صلاة دي دكنا يعني إقامته وحوية يصلون الصلاة واكوينت إقامة مركا لغا عبرايا أركانتي شروطي هيئاتك آدابك خشوع وعاز أي الله إيمانيا وصلاة وحي ربطها لفتر كذا
waxay rabtaa wax badanay u baahanta wax badanay ku buubtay kaamil ku noqotay rabtaa alladina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun wixii aanu siinayna wax kamid ah mintan tabciiliya leeyahay xoolaha hadii lagu siiyo kulligood inaad iska bixiso adoo mas'uuliyad ku saaran tahay naftaadu baa ugu horeysay ma banaana taas daday u banaanta waa jirtaa laakiin dadkaas waa dad khawaas meelana waa loo helayaa wa mimma razaqnahum yunfiqun inta ilaahay markuu ku sheegay shan waa isfo markaasuu ilaahay ulaa'ika humul mu'minuun ilaahay kuwaasaa mu'miniin xaqan mu'miniin dhab kuwaasaa qofku waxa weeye hadda mu'min ma tahay mase ma tihid qofku hadduu isweydiiyo aayadaas oo akhriha qad aflaha almu'minuun oo akhrinaya ma aayada kale oo akhrinaya ahadiis oo akhrinaya wuxuu is ogaanaya markaas inuu mu'min ka iimaankiisu kaamil yahay inuu yahay iyo inuu san ahayn wuxuu ilaaha u tilmaamay tilmaantaas leeyahay iska raadiyo tilmaantaas bis leeyahay iska raadiyo waxa Allah ka marxaati ka inuu mu'min xaq u yahay lahum darajaatun inda hadda inta lagu sifoobane abaalki muxuu noqday darajaada ilaahay agtiisa ku leeyahay رزق كريم رزق كريم مفسر كوي إمام القرطبي رزق كريم أم بحسنة آيات كسو قرآن كجتول وجه جنة الأولى جذا هودا نتيجة دي جنة وي أو إلهي رليسة رضا الرحمن إلهي جنة سير رضا الرحمن إن أنهلنا أنت دمان عبادي سنينه أو مارتها النتيجة إن أنهلنا محايلة دتك شقيها هاي بش هذا ما تم أنت الغرابة لما مشاركي سنو قاطورة با مشاركة صوص على ولبا كفر حسيه شغفي عنو قبنايا هدي لكن أو كهم جوبه وقف خساري ونقنايا أو مركز خساري وحلو شقينا أيو وإنتاس أيضا مركز أي تاي الله إن لو لجي إلهي وشي ساقب سنة مركز وحال ربائنا وناك أن كشقينه وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا هدوذنا وده إلهي فتفشلوا مركا أتفشل أنتان فشل إذن كدعوا تلذين فشلا كدعايا عبادتين فشلا كدعايا وحكس فشلا إذن كدعايا فشل كهذا أنها يستمحاد لي إلهي سبحانه وتعالى وحو النقر هيابي كان كهري ويني وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا هدودين وده إلهي هدان للدودين oon lagu doodin waxyaabo aan fiicnayn waxaan anuusaanay tahay hadaas la isqab dhaafo la isdilo maxay la dood waxay keenaysaa marka dambo in la isdilay keenay in la isnacay keenay dadka muuminiintaane dad isdilaya ma aha sida ilaahay rasuulkiisa ay ku taayeen mal muumina ikhwatuna ilaahay wax waa ka dhici karaan fa aslihu bayna akhawaykum ilaahay walaalihiin dhaxdooda ka shaqeeya marka hadda idoo iimaan la leeyahay oo muuminiin leeyahay wax waa dhacayaan laakiin inta muuminiinta oo kale ayaa inay ciilaajiyaan maanta caalamul islaam qof isoo gurmanaysa mala qolo walba meesheeda ay ku baaba'e ama ayadiyo afkaar kala duwan afkaara isku diraysa maxaa yeelay afkaarti tii ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii alla dadka amray oo midnimada ahayd ayaa laga tegey waxa la isaga reebayo wala tanaazacu ilaahi uleeyahay fashil baa imaanay waad u jeedin hadda meel kasta waxa isku dilaay dad muslimiina waay gaaladu ayaguna waa ka faa'iideyso dab ayaga gubi lahaay dabkaas biyo ku sii shubay isleeyin ayaguna waa bas horiya waxa meesha joogo geedo iyo waxa yaal dhan ha hulaaqaano ha dhamaadaan sababtoo qashinka baa aragtay hadii meesha ka bata waa la iska gubaa markaas dabka loo badinayaa gaas lagu bilbila dadkii muslimiinta ay marka waxa weeye waxay u yihiin ayaga qashinay u yihiin marka qashinka iska sii guba waay ilaan aynagii waa isgubayna ayaguna dabkii dhuxulayna ugu sii shubaya xaali naga noqon maayo qolada la saaxiiba waxaas diinu keeni mayso gaalaan saaxiib la ahay amba xaali iga ah diin ma ahan taas qofkii saasana ilaahay uu beeninaya عيل الله وحليه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم غايدوا تاسواي قفكي مركز قال أو جعلاده وقف وحو قال كرب أسميه وا عيل اليهود والنصارى أيوة با أدونك الله أنه شيء لن تاسوا حوي وحي أنفنيسا مستقبل ما يكون في المستقبل وي إلى ما لا نهاية
إلى أمد الدنيا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مستقبل بعيدة أي أنفنيسا ولن ترى رالك كان نقميس ولقيت واي أبدك رالك كان نقمه عنك اليهود خطاب كان نبغي هلا خطاب لكن وعواي مرادك ورسولك عليه الصلاة والسلام قال لك كان نقرما يعني ولقيت كان نقرما من الراعي مرادك اللي ولا جيد أنا واي الخطاب للنبي أيضا علماء والمراد غيره خطابك ورسولك عليه الصلاة والسلام لكن مرادك وحنا نبغي معصوم وي waxa loola jeeda annaga waaye oo nin walba markaas waxa weeye suxbad meel wax uu ku wato oo dana adduunyo uu ku wato walan tarda anka yahuud wala nasara hatta tatabi'a millatahum ilaahay suuqay ya ilaahay ummadiisa uga aqoon badan oo qofka dhahaaya qoladaasaan aniga xaliif la ahay waad ogtihiin caalamka waxa ka socda dadku sidoo hore lama ahan dadkii muslimiin ismul islaam dadkii qabay xulafay qola dad oo maaratay kufaari qolba xulal la fala noqoto yaa islaamku u nusraynaya oo qolada kale ay col ku tahay waagi maaratay madiino rasuulkeena kaleey salaas inta uu san tagin iyo inta uu tagaba yahuudi joogi jirtay banu nadir iyo maaratay qoladii kale saddex qabiilay ahaayaane intaasba waxa waaye waxay xulafa la kala ahaayeen carabti meesha joogto khasrad iyo awsaay bani nadir iyo bani qurayda bani qaynuqa kuwaleena waa jirjir laakiin dad yaray ahaayeen qolada ma idan ka idin la jirnaahay leeyihiin qoladaas waa la soo dagaal galayaan suuratul baqara hadda quraanku arateene haddii hataa dad ayaga qoladaas u qabsadaan maalkooda ku furaasay soo cishayaan waan isku diraaya intaasay marka waxa weeye xulafay la kala yihiin marka hadda fiiri amuurtu meesheedu horay u laabatay jaahiliyadii u laabatay runtii meeshaas laga ogaanaya maxaa yeela labada qabiilo meesha joogtay oo carabta ayaa qolo xulafa la ahayd markaasay la soo dagaal galayeen ayagoo qoladan boorinaysa qolada booraysa haddana waxa weeye markii qoladan wax laga qabsado waa soo furanayaan qolada kale ka soo furayaan waana isu ogolay iyaga dadkoodi marka waa isdhaafsanayaan inta kalena meeshay ku baaba'aysa arinta hadda meeshay hore jaahiliyada u laabatay ma kana qabla al-islam dadkii muslimiinta ay amal falkoodi kitaabkii ilaahay iyo sunnada wuxuu tagay markaasi jaahiliyadii oo waxa laga yaabaa annaga haddaan Soomaali haddaan nahay waxaan musiibada nagu hayso casabiyadu ay ugu xoog badan tahay waxa jiri jiray jaahiliyadii carabta markii taariikhda sarhaasho jaahiliyadii islaamku wixii ka horeeyay ayaa laga helaa waliba waa ka sii daran tahay tawna hadaafa anagoo qarnigan hadda inta marayno qarnigii maaratay toban iyo afaraad iyo jajab marayna taariikhda hijrada markii la yiraahdo ayaan wali waxaan taaganahay qabla dhuhur al-islam aan taaganahay wala socota hadda ahla isjeega maan fool xumadatan iyo dhibkan iyo mashaakilkan taasana gelis qabiilka la isu dilaayo la isku kooxaysanayo taaruf waa loo baa ilaaha baneeyay in bani fulan annabigeena markii waqtiga al-qurayshi al-kada awala leey waxay dhibaysaa wajirta taas laakiin sida anagu shaqaysanayno oo isku xulafaysayno isku dilayno waa diinta islaamka wixii ay ka soo degtay oo reebtay waa ka hari la'nahay marka xageen musiibo ku horeyna marka musiibo xageen oo ku haysa dhibaato huri mayno si bareer oo loo jeedo ilaahay daacadiisa iyo rasuulka daacadiisa loogaga tagay markaas arintaas taagan tahay jiilba jiil oo sii gaarsiina jiilba jiil oo ka sii dhaxla macaasida waa la iska dhaxlaa ayla nabiyullaahi nuux qoonkiisa markuu habaaray فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون وأتوا إليه سقال بقولية كنتم سنة وأنت الدعوة أودي كهرنا أسقوا جوجا كبعدنا طوفان كبعدنا وان ولا يكون إياه لو بقولية ججبا لإرادة أو نولا نبي الله نوح وحوي مركضت كاس لهلاجاي أو معاصد اللي هلاجايني أنت مؤمن أنت أصرت واحد صاروري sideetan ay ahaayeen oo markaas afartan raga iyo dumar kood ay ahaayeen wax kalena meesha ay sanaale
سقال بني آدم كواحد أسهل معاصدا شهوات كأسهل سقال بقول إيه مارته كنتم سنو أيا أنت سال عايا يقول الدلا حتى ودعي مركزي إلهي يوان دعاء يري فلم يجدهم دعاء إلا فرارا وإني كلما دعوتهم مرة جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا مركي أنت أصعطي أصغنا كقو سماي محايل إلهي حقيس أمرك دعوة الله فري أمرك إلهي اسكد بجوغا وقال الدلايا مدة مارة سيد هذا أصرت لغسو كوريي ميل قشن قبل الله يساقا طورا مدة وجوغا يا وكسو بحايا انتاس أساقو عليل مركاسو هادنا ميشي دعوة كبلابا مركاسو هادنا سليل ييليا أساقو أمرك إلهي اسكهيستا مركي دنبال لأوهي ووحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن لي انتاس ما هبارا يدي ما قوصنا ايو dadka dacwada waxa la rabaa inaysan marnaba aysan quusanaa la rabaa oo wax laga qaato taas ma quusanayo cid wax sii haysan wax sii iska daay asan naftiisa yaa loogu yimid oo la dila mana ka quusanayo markii ilaahay u waxyooday inta hadda ku rumaysan mooyaan wax kale oo soo socda ma jirto markaas ayaa markaas oo habaara marka ilaa hadda marka rajaa ka leeyahay malaha arladina macaasibay ku sii fidinayaan oo khayrka sii siyaadi maayo عد معصي كزيادة الدنيا إن إلهي كقاضي أو لهلاقة خير بدن سي أثر تاسو أي أبا بعضه وراد كود اللي جويه لكن أمة محمد إلهي رسولك يسوع وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رسولك كان رحمة للعالمين عذاب استئصال حتى كفارته رحمة داس نبي كفى إيديستين وهذا قال ده رواك الدم بديه لما عذاب أيو لجريد جوي مايو انت فضلك رسولك وحكاه الان لكن مد اخر يحكوا لي فما الدنيا دي وحو هلايا عذاب استئصال كنا وانا انت سي كابدين راح كجرا wax ka say haystaa laakiin intaas amaalna nabiga oo ma hayaan maxay yeelay meel ay watibada ma yaqaaniin marka in isti'saal ku dhaca khayr markaasuu habaar markaasuu dhahay rabbi la tadar ala al-ard min al-kafirin diyara innaka in tadarhum yudillu عبادك ولا يلدوا إلى فاجرا كفارا ساسوده إلهي أرلضة هو تجنوره قال هذا واحد دار بدقة واحد ميل بدقة أرلضا إلهي سارا هل حباك الريب نوره مركان وحو هيستا موقتي فرصة وهيستا سقال بقول إيه كنتم سننه ودعيها يو اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ودهي إلهي وددك يقول الله أو ما قرتان مساكين تان إسكك يدي له ليه مساكين تان يدي له أو وح ما قرتها إلى هو دم بيقول لا فرجة وكقبة وما دري أنت رجال لققبة إن لقى هارين واي أنت أسمر كي قوستي لك حق ربي لقى وجيسي وح خير بدنا تمركه نلش هذا إلى يسوي وح فائدة يرن وح فائدة معايا نلش فائدة مرها هدان إلهي أهل ديسة ضاعة اللي مارتها اللي عمرين أو عبادة اللي عمرين أو إلهي وحور كرالي اللي سمين وح فائدة إلى هذا مجرد مركز ربي لا تذر على الأرض من الكافرين الديار إيه العلة إنك إن تذرهم محال له هلاقة وإذا اللي تجي وعليها مركز إنك إن تذرهم موضح إلهي ضاد اسكر عفته ورول كان اسكسي جوغا يقول معاصد عن وضع يضلوا عبادك الضومن كاغي بعضيين يعني محايا لقفك مفسد كأه او وحوي بعضييسن أصنع إن بدنو سيسا الفنيا محايا للشيطان إبليس مركي إلهي أصدري إلى مركز استعد نفخة الأولى ما هي نفخة الأولى وابجوغا إلى وحوي ما نفخة الأولى أو كبابا آياه نفخة الأولى أنت لا قال أنت فسهذا أولاد دريه القرآن كواركتين مركز أو كاسبا مركز لجوغا ويكون بورينه ولا يلدوا إلا فاجرا ما نقدر إلا فاجر كفر بدن ويانا مركز أرنتاس محاولها يا لي وهؤلاء ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا sababtu maxay tahay dadkii joogay waxaan khayr lahayn kaliya ay reebayaan
khayr daraduna waxay ka imaanaysaa usuushi bay ka imaanaysaa usuushi waxay uga imaanaysaa waxaa jirtay oo soo aroortay asarta waxaa dhici jirtaa layidhi asaga cumrigaas faraha badan oo jooga marka hadda dadka waxaa laga yaabaa inay yiraahdaan intaas dad jooga oday soo noqomayn la ambiyada ilaahay intay joogaan oday ma noqonaynin waagi markaas risaalada la soo bixinayay intaas iyo hadda isagu yahay isku sidiisa la waay ma duqoobayo duqnimo meesha mayso waa soo tabar yiri anaga hadan xoogaa sii socono waa sii tabar yareeyna kabacdina dawaaba kaasa waxaa jirta leeyo arintaas oo u dhahaa leeyo nin kasta waxaa leeyo ilmaha uu dhalay wiilkiisa awlaadiisa waa keena markuu duqoobo oo sira markan waa dhimar rabtaa wuu soo wadaya nabi nuuxu warkaas uu keenaa wuxuu leeyahay markaas yaa ibni aw yaa binti إن أبي حذرني هذا المجنون وليه وأحذرك أنت وليه أنا أبهي أمركو مارتيا أو لمرحبا أو دردارك أو هاي نين كان والا إلى المجنون اللي جيرانه نين كان والا ويجا جدي دردارك كيس واي أنا دردارك أبهي فلاه أدنواك أجدا إسكال عليه ويلك دردارك أو قادا كي كوا قادنا ضد كنا سجل لسه من تمام وقته وحرم مركز سالواي ماشى علماء ليهين إذا ضاب الأصل ضاب الفرع ماشى أسواء هذه ضدك أصل في عن إكسو جيدان أي في عنانيا وإذا خبص الأصل خبص الفرع هذه أصل كحية هني فرع نواح مانيا سألتها ضدك أولاده بهذا وحي تاية نوشة وحي الماشى أي كبر باريا وح أولاده كبر باريا إلا يسكيل على شوي سامين تأيلاد هاي هذه ميل أو مارته مثلا كفار جوكتو عروت أتجلسوا وحكسة والله صعنا وحكسة ناقيه وحمقرت هذه كل وافس هذه سوته ماشي بس أطالع مركا ساعدهم ما يسالوا وياها مركا وحولها إنك إن تذرهم يضلوا عبادك عدو من كاغيلوا منايا ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا الله فاجر كفرين بوحكا لو كان رايا ملا مركا وحافظ بدن إن مركز وحوي هلاك عامة لو سميه واتي إلهي سبحانه وتعالى طوفانك إلهي كصدر فأخذهم الطوفان وهم ظالمون طوفان إلهي كقبتي أيقوا الظالمين سببتها ضدك هدي معاصي إلهي وكرهي أي كسجيهين الدنيا نوال عذابه عذاب الأدنى هل عذابه أو عذاب الأصغر أو عذاب الدنيا وهذا لفتر كذا راح أوكيني ما ذاتك مسلمين تمانتا عذاب الدنيا هايست إلهي أنا الشيء داركم ريوري ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون داروا إلهيكم مري دار أم بانا لكن أرنت سنة العسال الحقيقية عذاب الأدنى عذاب كيراي أياد الدنسينينا وامد هذا ما أنت نهيس أبارها علاد هجرة بدها الوضع هذا هايو بلايده عذر هذا عذاب الأدنى واي وهي كذا شيء وأثر المعصية وي معاصي هاد كذا واي أنت أصلا محاكيري أمر كي إلهي كتاب كاس هي السنة إن لقات أيا اللي يسكديدي إلهي با وحال لقد جمدا وحبق قرنين قرآن كيوم ماشى يا الله وحقله وأقرتي وذات كمسجد كجوجا إيه الماء دكسي مال عامد هذايه هايس كسي آخر السنة ليري وحو شيء بوركم هايو معايا لقف كان oo waxaan sameeyay asagii baa meesha ayaa wuxuu ka noqdo madaxu ka noqdaba diintina ma yaqaano asagii baana haddana dadkii ku soo hiranayaan markaasuu wuxuu rabo iska sameeyaa hal waxaaba hadda timida diintina yaqaana kala tagayna waa asna waa yimid kaas oo kaas ka basiixunba oo markaas mashaakil kala ay tahay marka hadda rasuulkeen uu leeyahay alayhi salaatu wasalaam إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من الناس إلهي علمك ما قاضي انتزاعا أن إلى مركز قلوب تلقسي من الناس دتك لقى قاضي قلوب تدتك لقى قاضي بل إلهي يقبض العلم بقبض العلماء علمك إلهي وهو قاضي علماء ذا ما حيسه هذا لكن وحال لقيا ماشى سوا نقدر يران كربناه كسو ماشى النسيس عندنا بقبض العلماء
culamada ilaahay dhamaynaya taas marka maxay ku tusinaysaa cilmigi mas'uuliyadiisi iyo meel marintiisi culimadu inay iska leedahay maxaa yeelay biqabdil ulama ya cilmi lagu qaada haw dhahay rasuulku kaleey hadiis sahih wa lagu qaadaya hatta ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا إلى ضدكم مركز ياشان إلى ضدكم حوائم رواد ضد كان عالم كان جوا قال هذا دستوري ولا حين لين إلا أن ضدك نينك مضحان إراها يراده وحال ليه هذا واكره وحال نوكل صار على ليه وهو اسكو ضيع مركز إنه وحسن مايو أو وحون كلا وحيا حلص نفلا نقوم معيه لقوا كلا هري ما يتاسه ضدك مركز وحي سمي سنيان مضح أو جاهلين هاي سميسايا مركز لا ويديها وحاليه وروح نوشيغا فافتوا بغير علم ايوه وح علم يجر اي مركز اي جوابها يا واسك جوابها يا اسك جواب وح صورته قال ما سيدب فضلوا واضلوا ايغنا وا باديوبين ومدنا وا باديها maxay بغير علم qofkii wax jawaaba umadi asaga luminaay marka meeshaas noqdadaas waxay culimo badan oo muhaddisiinta ay yiraahdeen marka hadda la leeyahay hadda waxa la arkaa leeyri iyadoo culimo joogto oo haddana waxa weeye cilmiga oo san shaqeeynin oo biqayri cilmi wax la iftoonayo culimada muhaddisiinta bacdigood waxay yiraahdeen waxa loola jeedaa marka la leeyahay ittakhadha naasu ru'usan juhalan بل بقبض العلماء أدينا بل بقبض العلماء إنه وركوليه بقبض العلماء العاملين بعلمهم ما لقوا هيدا علماء علم هذا أماكو عمل فلين رؤاسة سوى الجهال هذا وحي كدوي وابك حيهم وحي اعتباره ملها كواس علماء وحبنا نقول معايا محايا لهدي وحكا الصدد كاس أي فيديوهين وحوي وحبك علم معايا هدي أي لعلك هدي حتى أي رالك هين هدي كحيين وما يريبا وافعين هذا أدون كويل علماء عاملين وابو هذا رنتي لكن أود مجرته إن ضدك جهالة ده هي وحلقنقو أي وح جوابان ما علي كرته وإسلامك ضعف حوق له كجرا ضعف حوق له كجرا وانا منكر واحد جرا ما أنت عالمك إسلام إيه غير كي سبب واحد جرا منكرات واي منكر كسوى حوي سدح درجه ورت منكر إلا قهرتقه وواجب فرض عين باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا إنك سونك هذا إنتاس قفك مؤمن كاسي أوجا بحثك على مركز وقت قاصدة سويا واحد هذا واجبنا وانا لا صور عفه لا منكر هذا إسكجره مؤمنك وحوي إلهي رسول كانوا حوله من رأى منكم منكرا فليغير حديث جابر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده qofka idinka munkar arka wax shariicada lagu inkiro ka soo horjeeda oo banaanka yaala oo loo jeedo gacanta ku bedelo dagaal ha galo waa hadan mafsada kale oo intaas ka weynaysan ka dhalanayn maxay law islaa qaybta ka labaad laga fahmaa fa in lam yastadi'u danabu haduusan awoodin ma la dagaali kartid adiga ama hada dagaal bilowdo wixii aad raadayso fasahaadki mid ka weynaa ka sii dhalaa masalanba oo inta saisku soo duulaysa balaaya dhalaysa hoog ala sii qaadaya waa in la xisaabtamo marka laftirkeeda wax la sheegayo fa lam yasadi wa ruqsane fa bilisani arabka ka sheego oo waxaas waa baadil hada arabka wax laga sheego waa wax nasaaran waay hada ama anagu hada wax qaba karna laakiin arabka ina wax qabadkay kamid tahay arabku waa ka sheegayna hadaan gacan wax ka qaba weysanahay waa arabka wax ka sheegayna gacan qabashaduna culimo badan si ay ku fasireen ugu soo laabanayna fa lam yasif bilisani fa lam yastadi'u rasuulka hadawna awoodin مثلا بعضو wax sheego waaba la dilaaba naftiisa ku weeyaha laakiin inuu naftiisa ku weeyaa aana si khayr badan ugu oo hada la dhihi maayo war waxaan waa lagu dilaahay isku sheegin oo munkarka ka hortagina taas iyadana waxa ka khayr badan inaad sheegtay lagu dilaa ka khayr badan laakiin ilaahay umadiisa ducfigan iyo la og yaasaan nolol naxariisa halaha aan ku badbaadi karno aan nolol sheega ruqsa ku qaada karo ee la dhihi maayo qofkan waxa weeye asaa arabkiisa waxaan isugu keenay
asoo baadilka hadlaaya ee markaasi muxuu isaga aamusa inuu iska aamusaa laga rabay macnuhu saas maaha maxaa yeelay nabigu waa tawda calayhi salaam afdalul jihaadi kalimatu xaqin cinda suldaanin jaa'irin waa tawda jihaad waxaa ugu fadli badan kelima xaq oo suldaan jawr falaayo oo daalim agtiisa laga yiraahdo sababtoo qofkaas naftiisa inuu dilaa dhici karta dee waana la isku dilaaba wadankeena hadda waad ogtihiin inkastoo hadda datira ka batay oo wax walba wax sii nasakheen dhibaatadii hadda aan xasuusano oo soko in maaragtay dad culimo ah oo shariicadii ka hadlaaya oo maaragtay war sidaas maahan nin naagu ma sinna ilaahayso nin naagu wax badan ay ku sameeyeen laakiin waxaan ilaahay ku sameeyaan lagu sameyn la dhahay waad wada ogtihiin qoorta la isaga soo xiray ee markaas la dilay ayagana waa leedin cafaa la yiri laakiin eedaas arintaas ma ka naqaysin ma ilaahay aydiisa laga naqa karaa qofka doo ayad ka naqdo waaba gaaloobaah hana la dilay dhahan runtii waxa weeye lama dhihi karo dadku waqtiga kale waqti kasta culimada Soomaaliyeed waxbay dowri ciyaarta waa tii la dilay marka waa kalimatu xaqin عند سلطان جائر وي سلطان جائر ودين وحبا كأوغين سومالي هدانها وحن هوجيه وحواي ولغين هوغان او دين يقان او حق يقان ولغين هوغان وما نقول مصيبه ما سينغا هيسا ما ان ددك سومالي شعوبته ادونك جو اني كخيين بل وا كفي عنها waxaasna yeelaya dad jaahiliina oo juhaala oo markaasi wax iska samaysanaya musiibadana ka imaanayso ayaa qoorta noogu jira ولينا وانا دبتها رنت حقيقة فإن لم يستضيف بقلبه يوم رسولك هذا هو سيد لسانك أودين قلبك كنعه وحوا أجيدا قعن وحوا متالد هيه ما لسانك ونباتاك وقاري كرت والوديري كرا رقصات هايستا إلهي أنا حريص بدن قلبك كنعيسا هذا قلبك كنعه حتى قف بحصاياتي وذلك أضعف الإيمان إيمان كانت تساوي ضعيف ميلك معناه وحال قودا منكر للريبايو درجة مداس كسي هوسي سو كدنبيسا ما جرت قفك وحوي ميل كلا روايات كلا وحيده ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل الرسول سدح ذا سداد منكر كأتكون ريبويس إيمان كدنبيا ما جرت جيت كخردل كيلا أو مركزي كير يرمارة يا سسنته سسنت أيوة كسيرية قردلك ولا بس وماري سي وتقانا قبل هذا أنا مارت يعني كان إثيوبيا وحاله وحاله يقانا سجر حورة لو يقانا أنا هذا ما أقال لك علوم ديدا مشاهدة كما قال جرى ما لك أنه وحاله يقانا وأكيد كاسر خير بديه هو يقاني وهذا مثال واي إيمان قدم بيا مجرى قفوا البهيسكر هذه مركب منكر قعنت واكب الدري ويسي منكرات دعوها هي بوقت لسانك واك الشيء ويسي هي قلبك واك النع ويسي او تاغيرات او تاي waxa munkarka qabaylka isdilaya dhacaya boobkan dad fangarayha ama taageeraya waliba dadkan qurba joogta dadka qaybta weyn ka geysay kamid yihiin inka soo umadan aan la wada dhahin kuwa gudaha joogana ayaguna dagaalkayba wadaanba kana xoolihii uu ku taageeraya xogaagii dhalo oo shaqaysto soo tahriibay wixii uu helay oo gadal ku celina xagee lagu baxsaa marka waa yahay saddexdaas hadaynan kugu jirin iimaanka waa ka baxday runtii la shaka waay waa qowlka rasuulka rumeeyna wax iimaan laysa waraa dhalika min al-iimaan misqalu habat khardal rasuulka alayhi salaam waxa iimaan jooga marka weesna qaana Soomaaliyan hay xageen iimaanka keenayna taageero iyo balaayo iyo maartay beeshaydii Allah waaya wadaadka laftirkiisu balba aduna halkaas heer hebel la soo diray adna halkaas bal quraan la fariiso quraanka ilaahay baa ku soo cilaay quraanka xaw ilaahay quraankiisa oo been sheega waxaas ma quraan noqonaya واقي والوجيه دواس واسلاموكته قفكاس شيطان كلا واي اسغنا قران كاسنا اسا الهي كغوا قيامه الهي حجه والقران حجه لك وعليك ورسول قرانك حجه كو نقريا ام حجه كو نقريا نينك قبيل سو ديرايا داليره wax soo dilaysa wax u akhrihaaya ama u duraamaha wax duraamada leeyahay waxa uu sameeyay qiyaamo quraanka dacwiha lana hadli ma قرآنك وحويه دوكو إلهي كو حجيته إلهي وعمل ساسو هاي دوكو إله حتى صلاة أتكون شيء حتى لا فيرما وحك لا فيرما هرا جناد الجودة
قرآن كما كو مرخاتك عن مرخاتك لأم بان هدو كو مرخاتك عنه أو عليك نقدنا وحكا لو لقاي لا مجرد مركا قرآن كمركاسي ميل عن مناسبة هين لا دقايو لما تواي إلهي هنقا كوريو مركا وحاوي وحال الربا إن سيداسنا منكر كالله درجات كاسوس كليه intaas qofkii laga waayo wax iimaan qalbigiisa kuma jiraan qofkii iimaan laga waayana fahwa min ahli naar oo kamida salaada iyo waxba loogaga jeejeeda hadii la rabo xataa sababtoo banaan rasuulku banaanka uu ka dhigay iimaanka iyo isma aqbalayaan arinta nooca iyo casabiyada iyo qabyaalada iyo dilka iyo dhacaya boobka iyo maaratay waxa la isku haayo musiibaduna waa sii siyaadaysa qofka hadii qof maanta la dilo عقوبة كدرت أرلده وجليسة أرلده هذا رولك واحد ميل راش ميل بدر كبحايا ملا روب دي الآن ما هذا وده كعبارتيس روب الآن ما أهم لكن عقوبة أرلده جليسة أو جيدها جليسة كدشة أو حولها جليسة أو ضدك جليسة وحى صودا وحى كفديان وحى أرلده ككره كفديان وحى كل بيك قاعدة يعني ضدك بركة ملها حوله بركة ملها lacagti baraka malaha wax kasta bihi baraka malaha raashinki baraka malaha wax kasta barakada ilaahay ka qaaday sababtoo waxa galaya shuumiga musiibadaas keenaysa qof muumina kaligiis la dilo adduunyada la duubo ka sahlan adduunyada u qoori xalab loo baabaayo rasuulkan wuxuu dhahay alayhi salaam wuxuu dhahay la zawalu dunya hau dhahay adduunyo dhan inay suusho samaawaat todobada samo la baabash todobada akhlaaq wixii kaliya ahwanu inda allah min qadl al mu'min wa rasul ilaahi agtiisa wuxuu gasaa mu'min la dilo meeqa mu'mina la dilo haaya marka waxa ka wada inta mu'min jamac dad lagu dilay dad lagu dilinba dadka xoogaa waxay sheegaan culimadii waagiye yiraahdaan culimadaas waa kuwa ka horeeya la dili jiray oo nin mesela ba culamaha oo qabiil ah in la dilaa qabiilka wuxuu leeyahay ayagana sheeqoodii ama macalinkoodii dilayna waa taariikhday soo marnay waa joogna waa naqaana waa waxaas bal fiiri bal mal culimaankaas balaaya la sii fidina kaasaaba dhibaato dhiigiisa hayadana hal kale daalimkii la soo qaba maayada kii kala markaas hadan lagu sii diraa balaaya ku darwaa balaaya ku daray Soomaaliya ku socota hadaan meeshaas laga soo naqan qiyaamadii yaa noo qumaysa ninkii dhinta waa qiyaamiis waa quntay moogta hadawna ilaahay baa najaasinay walaalayaal waxa noocaasa aan ka taan iska ilaalino iska ilaaliskuna waa xadiiska nabi kaleey sahih muslim ka hada akhriino man raa minkum kana adigu meeshaas saddexdaas number mid ka qabso waa ka badbaadi macnaheedu waxa la rabaa qofkii asagu mu'min inuu badbaado lama rabo markii inuu badbaado rabo saddexdaas u taala saddexdaasna hada labada hore waxay qaba weysid mid dambe horta qof aan qaba karin ma jiro qof ilaahay halaago hoojiye ma adiga qalbigaaga kula leh qalbigaaga fa biqalbihi oo dhaay qalbigaaga hada yaa qalbigaaga waxa ku isyaa u jeeda dadka qof walba qalbiga waxa uga jira cid sheegi karto rabbiga abuur ahayna ma jirto taasa ku badbaadi kartaa hada wax dhawaataa ma lehe marka inaan taas ku dadaalno ayaa dhul ka baahay kalimadana hada aayada aan ka bilowno ma dhamaani wala tanaazu fatafshalu wa tadhaba rihukum waxa weeye daacada ilaahay rasuulkiisa laga tagay waxay keenta fashal ay keenta fatafshalu ilaahay wuxuu dhahay waadiyo wala tanaazu fatafshalu wa tadhaba rihukum ma quwwatukum wa dawlatukum laga wada tafsiirka kuba saas waay وهذا وحوي أتفشلنتان صومالي ما فشل منه وحاكرنا شمركة وتذهب ريحكمات من مركة وحاتقى يوم إلهي أودين يا بابا عيسى قوتكم ودولتكم تفسير كثير حتى متك هذا يرى تقرير تفسير الجاهلين كثير أساسه مفسرة أودين هي دولة مدينة يا بابا عيسى دولتين محابة بهذا وعلى ورنت صار نما بروفيسور هبلو كورن نما ندي وحبك أقوني بروفيسور كذي بروفيسور والله ربا لكن دينتنا وبرتها كم يصير هذا حوالات اللي هو ورقده ميل لو جوجي اعتراف سيء دينتنا وحو آخر كرعان آخر حديث 40 كيو فقه قال لك قبل سفينة الصلاة وصار آخر كرع ما هو ترى يا مركز هو مفسد وايك أسوكله وحنا نقول وليه ما وهرت إنه
هذا هرت أنت أصبح برت بلو أصلا نفتيس هديس كرو مركو نفتيس هديسه ما أنا ولاد نمذا كليه أو كوي كاهينه ولاد نمذا وح كصي مجال وين إسك وح ضدك برتة دين تي والله برتة وح كوينا برينا مركا آد وارتيا وقته وإسك جابي هاي ومضى مسجد كحوجا وكويري هاي الحمد لله آد حضور كان شرفت بدن دد كان Soomaaliyeed oo arlada tayimiday oo dhibka iyo hijrada wax walba soo maray haddana maanta iimaankoodii wata iyo alla jaceelkoodii diin jaceelkoodii waxay ka mid tahay markaan saas leenahay waxa weeye maamulka guudan ka hadlayna ma ahan maartay dadka Soomaaliyeed dadka diin jacel ma jiro dadka uu hadda umadaha wax la bartay ama aqoonta leh ama wax baxsiya xaqiiqatan shacabkeena شعب سيد دينته وجعلين أما يقول عمل فلان أما علومدينا نادر وادون كي نقول أقوان عدوى البوال هذا أقوان وحمتر أقوان وحدي واحتريس لين كان هذا إلهي يريبار أو قرآن كوش يا فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الهس أو نحيو أو لوش يا بلعم بن باعورا لين كان سو حوي اسم الأعظم كنا الله بري maaragtay inta wax ka baranaysanay 7 kun oo talaamiidiisa ay joogeen sheekhu ahay markaasi maalkii fasahaadiyay aqoon haday wax tarayso taasa wax lagu dheefilaay cilmigu waxa uu rabaa ku amal falow doonaya waxa taqaan inaad ku amal fashaa khayra waxa lagu amal falo wax jaraba ma hamba hujjatun alayka noqonaya dadkayna marka dad aad ee diintooda u jecel oo maaragtay waa u jeeda hadda maanta maalin shaqo waay laakiin shaqadii waa laga soo tagay dadku waxay rabaa inay ruuxdooda dhisaan meeshii jisadka ay dhisay jirku waxba tari maayo jirka waxa uu tarayo ma jirto wakadalika uxila ilayka ruuhan min amrina aw ilaahi ruuxi markaas waxa waaye waa quraanka qof quraan ka maqan yahay waxa weeye waa qof aan ruux lahayn oo kale quraan ma yaqaan in alladhi laysa fi jawfi shay'un min alqur'ani kal bayt alkharib wa tawnawda qofka qalbigiisa wax quraanka ku jira guri dudumayo dooli iyo markaas waxa weeye baranbaro iyo jiir waxaas maartay xayawaanka iska dhex joogo kala waa qalbi waxa asaas waa gurigaas oo kala waa ka kalena waa qalbi nuuraay marka waxay tahay ay mandarkan uu sheegaya in dadkaanu dad wanaagsan oo saalixiina diintooda jecel ay tahay dhibaatadana waa laga cararaa hijra waa dhacdaa rasuulkeena kaleey salaam ahabul bilad ila allah ahabul bilad ilayhi makay heeday waana ka tagay oo dhibaato uga tagay diintiisa soo la hijroona sababtoo hadii adiga naftaada la xumeeyay wanabi waa la dili rabay go'aanka daarunad wal uu gaar ku laabamayna siira way taasuye waa la dili rabay rasuulka kaleey salaam marka naftiyaaba maartay in heerkaas nabiga la gaarsiiyane masaalixa ku sugnaaday in annagu soo cararnay dhulka nimaado masaalixa ku sugan yaanaba anagu ogaani walow basadallahu risal ibadi la baqo ayadaas macna badan oo loo kala dhigo waxa lagu soo la yiraahdaa af'aalullah la takhlu an masalih qaa'ida waay qaa'ida kulliya leeyahay wixii ila adduunkana wixii ka dhacay af'aal ilaahi waay masalih kama marna marka inaan saan noqono masaalixa ku jirta maay rasuulku kaleey salaam marhabin inuu ka tago meesha ku dhaata qaali waay dadka waxa la leeyahay war Soomaali dadkeediba ma rabto waata si ordaysa leeyahay dalkooda waa rabaan laakiin waxa weeye waxay ku rabi lahayn ayaa dhibaato haysata maxay la dhibaato inay cid meel ka raacayso rasuulkeena loo waxyoohayo niman markaas meel midi iyo warma iyo seef ugu sahanayaan meesha uu joogo agteeda ka soo horjeeda meesha la dhihi jiray daaru nadwa عربتي قريش isugu timiday la biray rabay hay keenta arinto ilaahay nawaa ilaahay dadkaas waa fiir barta ilaahay kuwaas waa baabi kariida malaa'igo inuu soo diro eber laga dhika malaa'igo ma fiiro quraanshada guriga ku jirta lagu diri kara quraanshada saadamay karta maxay asxaabul fiilba soo shimbiru malaynin wa arsala alayhim dayran ababila tarbiyada maroodi meelahan jooda ta shimbir dili kar ma aragteen waa markii laakiin ilaahay ku diro waa dili kariya quraanshada meesha la joogtaa dili kartaa baaba ka dhig ama waxa weeye malaga afuufi karay lama yeelin waa afcaalu la takhlu in nabigu meel tago oo ummad diinta gaarsiiyo oo wax soo baro oo islaamku cizoobo hadii saas leeyahay moogtahay islaamku cizigiisi oo loone oo sharafoobaan asxaabta
ummadda ay sharaf maxaa yeelay hadday ayagii wixii ilaahay ugu kaalmeeyey sabab u noqdeen markay islaamkii ku xoojiyaan sharaf ayay yeelanaya in ayaga la sharaf yeelaa dadkaas oo diinta diyaarka in loo tago wax badanaad kasbanaysaan diintana waa la akhrisanaa waxaan ku faraxsanahay annagu hadda dadka waddankan jooga maalmaan joognaa inaan ummaddaan aragnaan jeclayn waxaan ku faraxsanahay oon aragnay culummo aad iyo aad u tiro badan east africa saa soo marnay sidaas oo kale oo dadkii culumadiiba kala yaraynba maxaa yeelay culummadu laftirkeedu masaakiin waayo dadkay ka mid yihiin meeshii loo cararay wax uga cararaya nafaa iyagana wada marka dadkii bay saas ugu dhex jiraan waana faa'iido hadda dadkii kaligood haddii la isu daayoon culumma joogin dadkii waxa weeye waa khasaaro waaye ayaa wax u sheegaya meesha hadda macallimiin quraan maa la dhigow hayaa kitaabaa la akhriyow hayaa xaaladuba maarata heeska cuslaato dadka xoogaaba heeska jirto meelo badanoo aad ka degantihiin waddankiiaba ka degantihiinba oo dad badanoo duruustooda iyo meelahay fadhi jireen masaajiday fadhi jireen mar ina uu dagaal lagu kala cararay weli asalka dhigi la-aa jira laakiin hadda idinka waxbaaba akhrisadka waqtigiina idinka u talisiin waxayna ka soo goysaan ayaad wax akhrisan kartaan waqtigiina hadda wax ka soo goyseen kalimaadkaanaad u timaadeen ilaahay yaa iskale subxaanahu watacaala annagu waa ka turjumaynaa mooyaane annagu waxaan naqaano ma jirto cilmi lama dhalan oo waxa waaye waxaan la dhalana ma jirto wax banaankan lagu kasbado waayo تعلم واتونا إمام شافعي فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل وحبر أيوه علم عمر كاس فليس المرء يولد قف صاع علم الله مر عليه وليس أخو علم قف علم له لم يدمها كمن هو قف جاهله مركا وحوي إن مركا سوى حلبرته هي لوبة هي وحبر شذا كده ذاله دين تهلا برته خلاف كره اللي يسكت أيوه خلافك أو نعيبك كان حرام واي سيدي سبب خلاف هذا عليه لبدا وداد ماشان جوجته مساجد كان كلا جوجته ونبنينك كلو رديها وعايا وعدو كويهاي ماشا كم وقت لبدا الدكسيو اسكو اكتر لبدا معلن ويس كسو هرجيدان لبدا بضاعه الدكامنك اسكو يعني ويس كسو هرجيدان ومصيبه واي موقته waxa waaye qallaha iyo qadarka ilaahay raaliha ku naqanin waaye waa xasada liiraakaas khilaaf lama yiraakaas oo kale xaasidnimo la yiraahdo xaasid weeye markaas alxaasidu laa yasuudu xasadkuna wuxuu ka mid yahay sifaadka ugu horeeyay macaasida awwalu macsiyatin dhaharat fi hada alkown waaye abuna aadam markii ibliis u sujuud la yiri waa xasdee ma ogta darajadaas waxa soo nacaya markaas uu diiday sujuudiisa heer maxay ku gaarsiisay markaas inuu malcuun oo noqdo xasadka iyo xiqdiga iyo isyaraysiga iyo xaqiraada marka dambe waxay keenaysaa ilaa xuduudda ilaahay ka baxday keenaysaa dadka loo naseexeeyo waxa la isu sheego ummadan gaar ahaan dad hadda maanta mahan ku qaybsami kara ma jiraan ummadan waxa weeye siha wax loogu wada sheego si naseexaan ha loogu sheego haddii ma salan waxaan aragnaa microphone la qaadanaya markaas wadaad halkaas isaga jooga wax laga sheego waxa la isku tuura waxa uu dhahay imaamuna Shaafici waxa uu dhahay man nasaha akhahu sirran waxa uu dhahay man wa'ada akhahu sirran uu dhahay faqad nasahahu ninkii walaalkiisa wax u sheego wacdiya waa u nasiixiyo uu dhahay si sir ah si hoos waad xogaa bal hebel oo kale waa kula shawra bal meesha saabal ka waran saasaan raba inaan ku sheego bal xaan isla dhana qofka dadta boodi maayo laakiin hadda meeshaan ama naas oo dhan kaasusaas waaye balaaya daa tiraahid asagana balaayadii oo ka sii qaado dib dambe isugu soo noqomaysid wax la faa'iideeyay ma jirto marka waana aragteeneeday hoogii laga qaado waligiis oo socday ilaa qiyaamadu ka qunto taas wacdi lama yiraa kaas oo kale waxba naqibay waa fasahaad waay waman wa'ada akhahu sirran faqad nasahahu ayuda ninkii walaalkiisa sir wax uu sheega waa wacdiyowda waman wada'a hadaahu jahran oo dhaay faqad fadahahu ninkii walaalkiisa jahriya wax uu sheega waxa saan ku sheeg wax la isugu soo baxayo waa faleexiyowda qof aad faleexaysan ma ku jeclaana ma ku jeclaahay colaad naqalaysa colaad taagataas noocaas waay marka wax barashada hal ugu dadaalo waxa loo leeyahay qofka doo wax barto wuxuu fahmi karaaya waxaan jira si uu maartay uu la khidaabo soo u maareeyo si uu maartay wax u qabto ayaa soo baxaysa taasna cilmiga iyo aqoonta ay ka soo bixi kartaa taas marka waxa weeye wax barashadana hal ugu dadaalo oo diinta xoog la saaro aad iyo aad ayna ummadan waqtigoodii maartay qaaliga ahay oo soo hurtay anaga nafteena ma ahan anaga noloma iimaane
آيات كاس إلهي حديث رسولك عليه الصلاة والسلام أنو كنا واجينا لو يمد أنا قدتك جسدك ومد دارانك منها وأنا هو خير درنا هبا وقفك قدتك هو خير دراني قواير أنت مخلوق إلهي دي ليلة ساساني من سنة حقيقة برك إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى ومدان خير الله سيئ. هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.